marka hore ugaas hambalyo waan kugu hambalyeynaa duubitaankan iyo xafladan iyo mansabkan qiimaha badan ee aad beesha qiimaha badan ee Soomaaliyeed ay ku igmatay aabaha u soo igmatay awoowa u soo igmatay awoowa kale u soo igmatay kulligoodna dad sharaf leh oo karaamo leh oo la soo tijaabiyay ay ahaayeen adigana waxaan rajo weyn aan ka qabaa aaminsanahay inaad insha Allah jidkaas aad ku taagnaan doonto marka hambalyaan markuu leeyahay marka labaad waan ku ducaynayaa ilaahay ha kula garab galo mas'uuliyadaas weyn ee intan oo dhan lagu marxaati galiyay qarankii Soomaaliyeed oo dhan noocay bulshadu noocay rabtaba ha ahaatee waxa waaye waa marxaati ka ahaada mas'uuliyadda inta leeg waxaan ku wareejinay ugaas Cabdirasaaq marka ilaahay ha kula garab galo mas'uuliyadaas inta kadib dhaqanka waxa asal u ah in laga helo sifaat muayyan oo ay ugu horeyso geesinimo deeqsinimo iyo cadaalad saddexdaas marka la isku daro waxay dhalaan haybad iyo karaamo la siiyo qofka ugaaska haddii aad aragto ugaas ama duub aan karaamaysnayn saddexdaa inuu midkood leedahay laga yaaba marka waxaan rajaynayaa inay saddexduba ay kugu dhan yihiin ilaahay idinkiis inta haddaan ka baxo beeshaan u hambalyeynaya waxaan leeyahay ilaahay idinka dhigo hogaamiye idin mideeya idinku hogaamiya wixii wanaagsan oo hoodaala Allah idinka dhigo waxaan dhihi lahaa kow maadaama duubabkii Soomaaliyeed madaxdii Soomaaliyeed ee dhaqanku ay meeshan fadhiyaan siyaasiyiintiina fadhiyaan waxaan u baahanahay in dib u eegis lagu sameeyo dib loo fiiriyo dhaqanka Soomaaliyeed ee maanta jira 2026 iyo dhaqankii jiray 60kii ka hor maxaa u dhaxeeya markay timaado sida loo aaminsan yahay sida ay kalimatul fasliga u leeyihiin sida loo karaameeyo intee in leeg baa u dhaxaysa maxay iska bedelay si kale haddaan u dhigo dawladnimadii Soomaaliya iyo dhaqankeenu ma ku nuxuusay mise wuu ku baraaray ma isla socdaan ma isla qabsadeen research cilmi ah oo academic ayay u baahan tahay maadaama dawladuna ay daruura xayaat ilaahay uu abuuray bani aadamku inay ku noolaadaan ay tahay oo nicmo odayguna marka la fiiriyo bulshadeenan uu ka yahay rukni asaasi ah oo kamida bulshada oo xataa bulshadii Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam sidaas ka soo ahaa waligeedna soo jiray sida ay isla socdaan iyo habka ay isla jaan qaadeen ma isu dheelitiran tahay wax ma isu ogol yihiin mise mid baa la dul saaran yahay waa daraasay u baahan tahay maxaa jira waxaan rabnaa inaan dawladnimo xoog lana helo dhaqankeenuna uu inoo sharfanaado ayaan rabnaa taas marka laga tago dalkaani waxaa la yiri waa federaalnimadu wax dambiyo leedahay malaha waa system dunida ka jira waana system dabada ku haya ama asalka ku haya antum a'lamu bi umur dunyaakum wixii idin fiican idinka garanaysaan aqliga basharka bani aadamku ay gaartay habkii u noolaan lahaa asagu inuu ikhtiraacdo keensado waxaana keenta duruuf siyaasadeed dhaqaale bulsho xataa juqraafi oo ummad laga yaabi lahaa inay kala tagto ayuu dawo u yahay isku haysa su'aashu waxay tahay bulshada Soomaaliyeed duruufahaasi ma ka jiraan mase ka jireen
si uu u daweeyo su-aasha labaad waxay tahay haddii federaalka aan ugu talagalnay in ay tahay nidaam ama uu yahay nidaam lagu daadejinayo adeega dawladnimada oo santarka looga qaadayo oo tuulada lagu gaadhsiinayo laakiin dalkii uu weli sidii yahay habkaas ma ku soconnaa mise jid kaluu ina mariyey oo aan ku sii soconnaa waxaan ku soo gebagabaynayaa soomaaliya waxay leedahay cadow dal aan cadow lahayna ma jiro mid muuqda iyo mid qarsoon intaba dhammaantood waxay heshiis ku yihiin inaan la aqbalin oo la yeelin soomaaliya oo mid ah oo nabad ah oo awood leh oo khayraadkeeda ka faa'iidaysanaysa intaas cadowgu ma ogola innaguna intaasaan u baahannahay aas-aasku waxaa weeye marka midnimo waxaan ku baaqayaa dadka Soomaaliyeed ugu baaqayaa midnimo xilligii loogu baahida badnaa ayaan ku jirnaa waxaan u baahannahay marka midnimo saaxiibka Roble oo madaafiic yar meesha ka tuurtuuray baa waxaan rabaa aniguna siyaasadda marka koowaad waxaa la yiraahdaa carabtu dhahdaa likulli maqaamin maqal meel kastoo la tagay hadal bay leedahay marka meeshani hadal siyaasadeed ma leh laakiin laba kelimo haddaan ka idhaahdo intuu yidhi mid waxaan leeyahay war la qabaa xiisa ma leh midka kalena waxaan leeyahay saacaddu saaxiib aabbahaa kula hadlaya wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys weliba waa isbitaalka keliya ee ku guulaystay 7 sano isku xigta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya laga soo bilaabo 2019 ilaa hadda Somali Sudanese Hospital saaxiibka bulshada SSH